jeeno colay aan taageersanaa jiray laakiin hadda alxamdulillah waxaan ku haystaa in la yiraahdo CK maxaa yeelay toob uu noqday YouTube leed maalin kasta asagana calaam ku naca gaalada gaarsiiya gaala adduunyo loo balan qaaday yaa ku gaarsiina war adiga aakhirad wax ku leedahay aakhir wax u raasinayo boqorka youtuberada CK ayaa sheegay in uu dil kaga badbaaday magaalada Muqdisho kadib markii uu halkaas yimi 2 bilood ka hor CK oo arrinka maalmihii ugu dambeeyay ka dhex guuxaya ayaa bartiisa YouTube ku shaaciyay boqorka youtuberada CK ayaa arrinka ka dhawaajay hal maalin kadib markii uu YouTube-kiisa ku shaaciyay in gabi ahaanba uu ka badbaaday dil taasoo laslaha Muqdisho ku qarxay haddaba CK oo hadalka ku dheeraaday oo runtii sheegay youtuberra inay rag isku shaqo baahayeen oo runtii kamid ah youtuberska magaalada Muqdisho ay ka dambeeyeen wararkan laakiin say Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan naftiisa halkaas ku weyn subhanahu wa ta'ala Ilaahayna ka badbaadiyay dilkaas ruuxaantii CK oo arrinkan ay dadka ku noqotay dadkii daawaday ay ku noqotay arrin aad uga naxdin badan ayaa youtubers badan oo Hargeysa iyo Muqdisho jooga runtii ka soo falceliyay haddaba halkaad nagala socotaa waa kanaalka xogbixinta wararka haddaad ku cusubtay saaxiib subscribe saar like-na saar muuqaalkeena muuqaalkoo dhammaystiran ayaan u guda geli doonaa CK oo sharaxay arrinkan in magaalada Muqdisho looga maleegay qarax xun laakiin Ilaahay aanu halkaas naftiisa ku weysin oo runtii uu ka badbaaday CK oo sidoo kale sheegay in ay raggan dilka u maleegay runtii ahaayeen rag isku shaqo ahaayeen laakiin Ilaahay aanu u qorin halkaas CK ku dhinto laakiin CK ahaa hadafkiisu inuu gabi ahaan shanta Soomaali soo maray ee gudaha Soomaaliya soo maro uu showino ku qabto laakiin nasiib darro cudurka coronavirus awgii ay sababta darteed showyo badan oo CK qaban lahaa uga badbaadeen CK oo runtii soo gaaray magaalooyin badan oo runtii aan la soo tiri koobin laakiin aan soo gaarin gudaha Soomaaliland kadib markii uu isdhahay in waa lagu xiri doonaa oo runtii Soomaaliland ay tahay meelaha ugu badan ee Soomaalida ugu xabsiyada badan oo runtii ka mid noqotay inay fanaaniinta iyo dadka xagga iyo xamar ka yimaada runtii isla waqti xaadirada ugu dambeeyay jeelka loo taxawa saas darteedna uu CK uga dhacay oo runtii aanu iman magaalada Hargeysa laakiin CK oo dhowr iyo 10 magaalo maray oo runtii loo kulmay dad aad u qalbi wacan showyadiisina aad uga soo xiiso badan oo runtii dad badan oo shacab Soomaaliyeed ka soo qayb galeen laakiin